عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأمل يوتيوب شانل كذا وانا سما فري حسيت هذا نوع اسمه شانل القالي هذا أول ريو شوكت لسه كله واقم باك سما يوتيوب شانل. فيديو قلنا إن انتو ستونو وحن دوبي شلي يمانتا أنا قلت جامعة مادة برتوا حوالي social work سواء أسبوعي حال إسكودرا لو بري طولا لإسكودرا طولا سواء حب كسو أروري حب كسو كاد طولا وما دي كرب قف بمير بالودرا أنا سمستر كان إلى أمريكا وحلي وأدي سكول كاسو أنا إن شاء الله إني كنت ستونو كليبيا يرير سكول كاس وسكول مسلمات wuxuu dhisan yahay adiga ilaa iyo adiga 2006 kii asaas oo dhisan yahay waxa dhigata 500 oo arday ma la dhigi karaa 500 oo arday wax u dhow wiil iyo gabar isku jira 500 iyo adiga minimum 20 macallin oo ardayda wax baraysa okay iskuulada kale wuxuu uga duwan yahay iskuulka kan waxa dhigata ardayda danyarta ama reerkooda aan waxba haysan ayaa wax lagu baraa وإنجليش ميديوم أو إنجليش كواحد لغو برا هورتا أسبوعي ألا كنا وحبان كلاسو كلنا سمستر كان بلابايا أفر في 6 بلاد لبا هورا إي لبا دتن واشالي إي مانتا إي لبا كلا لبا دم بانش على السنة إذن صوتوه بل وح عصب هذا كوسو أركسا إذن لسو سوتسيو هورتا هدي عن سومالنا هاي أنا وحير مركي نقول عن وأركتين waalidkayga la qaybsanaa kana nagu dhacay iskuulka maanta waxaana ka dhacay maxaa la dhahayo kale haduu ardaygu maanta difficulties kala kulmayo galaaska ama waalidku u sheegi lahayn ama asxaab ama wax ama reaction ba sameeyayna wixii ba ka hortagi lahayn horta iskuulkaanu maanta tagnay iskuulka arday baa dhigata wiilasha kan ugu yar malaha 3 sano jir ilaa 4 sano jir weey galaaska ugu hooseeya ilaa galaaska 7aad ilaa 10aad buu ku eegay galaasada ay bixiyeen maanta waxa la soo kulanay arday galaaska 3aad dhigato ayaan maanta la soo kulanay ardaydaas gabdho bay ahaayeen 3 gabdhood waxa ugu horeeya aan kala soo kulanay oo qalbigan xanuujiyay waxay ahaayeen iyagoo galaaska 3aad ku jira ay la kulmayeen waxyaabo falal foolxun oo ah suuliyaasha oo la iskugu soo furayo iyadoo bad touch lagu sameeyay ama si xun loo taabtay oo kale haddana waxa taabanaya ama falka xun ku dhaqaaqay waa ardayda yaryarka ah oo galaaska ugu hooseeya ama galaaska koowaad baa la dhihi karo marka waxaan israahaday okay anagu waxaan ka cabanaa bulshadeena kufsiga saaid baan uga cabanaa reerkana kufsiga waxay u tageen kaalinta labaad ama kaalinta koowaad ee adoon weynaha kaftan baa u maleyn jiray markii la dhahayo waxyaabahaas oo kale iyaga ugu horeey kaftan baa u maleyn jiray waxa is dhigi jiray okay laga yaabaa qofkan waxaas ku dhaqaaqay inuu barbaarta ka soo luntay ama falal xun uu arkay ama laga yaabaa ardayga gurigiisa wuxuu ku arko inuu iskuulka la imaanayo ama televisionku ka arkayo ama TV-yada iyo maaragtay telefoonada iyo waxa uu ka daawado iskuulka la imaanayo horta experience waan ka soo qaatay experience-gaas oo ah in waalidku saaxiib la noqdo ilmihiisa hadda anagoo ah trainees ama dadka maaragtay xog aruuriska ama dadkan maadadooda hadda tababar u qaadanay anagoo ah ayay ardaydan yararka maanta wax nala qaybsadeen oo falal xun oo iskuulka ka dhacay nala qaybsadeen saasay tahay macalinka lama wadaagi karin maamulaha lama wadaagi karin maxaa yeelay waxa imanaya aaminaad daro waxa leeyahay ardaygan yarka wuxuu ilmaha yarka wuxuu waxan ugu hadlayaa maanta waxaan ka soo bartay wallahi ilmahaaga ama walaalkaaga ama walaashaada haddaad aragtid iyadoo wax ku sheegaysa marnaba kaftan ha u qaadan serious waaye hadduu ku dhaho ilmaha maanta waxan baa la igu soo sameeyay ilma yar oo adiga 5 sano jir ama 7 sano jir erayadaas ma abuuri karo mana keeni karo xitaa inuu ku hadlo waxba ka jira maanta marka waxa la qaadanay ardaydaas waqti fiican anagoo counseling u sameeynay
anagoo la hadlaynay anagoo dhibaatooyinkooda la qaybsanaynay anagoo magacyadooda qorayna oo yacni qof walba background checkkiisa fiirinaynay oo ah ilmahan waayu galaaska uga daahaa ilmahan maxay dhibaatadan maalin walbo taagan ee u haysataa ilmahan muxuu mar walba la ooyaya mar waliba haddaa aragtid ilmo saasa ama galaaska kasoo daahaya ha canaanan la saaxiib oo weydii waxa guriga ka dhacaya laga yaabaa waxa guriga ka dhacaya inuu ilmaha saameyn weyn ku yeelan yihiin ama ay u gaarsiisteen kaba soo qaad hooyadii iyo aabihii baa isdagaalaya ilmihii hortiisa ilmihii waxaasuu qaadanayaa wuxuuna ka dhiganayaa wax caado ah oo normal ah hadhow isaga mustaqbalkiisaasaa ku burburaya siiba aniga walaalahayga qaaliga Soomaalida aan rabaa inaan la wadaago maxay yeelay aniga qof kale waxba igama gelin bulshadayda waxay iga galeen inaan idin la wadaago way ii muhiim ilmahaaga haddii uu wax kuu sheegto uu ku dhaho yasaana jirtay maanta saana igu dhacday mar labaad reaction labaad baa sugin markaas isla markaas wax samee maxaa yeelay ilmaha hadduu aaminaad ka helo adiga wax walba uu ku sheegaya I hope in a video ka heshaan hadduu alla idmo maxaa la dhahayay haddana clipyada idin wada tusaya waxaana inoo balana insha Allah videoga ku xiga hadduu alla idmo haddana clipkan soo socda ka heshay make sure inaa subscribe noo sarto walaal qaali waxaana inoo balana insha Allah videoga ku xiga and make sure ilmahaaga in aad aaminaad ka keensan kartid adaa saaxiib ka dhigan kartid adaa walaal ka dhigan kartid saasay tahay ay ilmahaagu la jaan qaadaya waxa wanaagsan wax walba adoo tartiib u sheegaya ayuu ka yeelay laakiin qaylo iyo dil ilmuhu waxba kuma fahmo marka insha Allah waan salaamayaa taaliba ma salaam maanta waxa ma qaban hawlo yareer baan qabanay oo dalaayre hawlo yareer baan qabanay oo ku saabsan iskuulka iyo waxaas iyo ardayda oo la hadlaynay waa inoo iyo birto wanaagsan waxay tahay 3 saac subaxnimo 3 saac subaxnimo ay tahay waxaan kacay 1 saac meelahaas markay ahayd ساكن sidoo kale vlog leeyahay so yeah waana meesha markaan tago waxa dhacday waxa rabay inaan videoga si fiican soo duubo badan waqti waay ana waxa kacay maankii kacay so inta isdiyaarinaya waqti ahayd by the way sidoo kale waxaan ku mashquulsanahay xaaladahay xafladii aan alaabta ku soo bandhigan lahaa alxamdulillah tilna wax wanaagsan socdo insha Allah khayr noqon saafaba ana shalay 2 saacadood hurday habeenkii oo dhan ana 2 saacadood kaliya hurday ayaan shalay kacay 9ka habeenkii oo dhan ma hurdin ba yani 2 saacadood ma ka seexday hurday yesterday baan kacay 9ki wala bistay filooga aaday filooga ana waxa ka imaaday aroon 3 galabnimo meelahaas
then anigi gabadh abaayada asraacni waxaan soo fiirfiirinaynay like purchasing waxaan soo fiirfiirinaynay so haddadan xitaa aan hadlayo horta fiican iguma jirto but waxaan loo dhibtoon faa'iido ma leh so yeah insha allah khayr noqonaysaa hadda waxaan saaranay ubarteedii waxaan usii socdaa locationka maanta fiilwoga meesha yaroo aan ku qoranahay semesterkan waan usii socdaa okyaalaha waxaan u qabaa waa hurdaysanahay hurdada indhaha iga bararisay nooc kale ah haysaa ayaa